Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha badan meel kasta aad joogtaan. Waxaynu soo qaadanaynaa shaqaqada iyo mudaharaada gilgilay wadanka Itoobiya, gaar ahaan caasimadda Itoobiya. Fanaan dhalinyaro oo caanka ah wadanka Itoobiya ayaa xalay lagu dilay wadanka Itoobiya. Fanaankan oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ayaa u dhintay rasaas lagu soo riday caasimadda wadanka Itoobiya ee Addis Ababa, gaar ahaan xaafadda Galan. Fanaankan oo lagu magacaabo Halacu Haduus oo ah 34 jir caan ah wadanka Itoobiya. Fanaankan oo caan ka ahaa bulshada wadanka Itoobiya, gaar ahaan qoomiyadda Oromada, ayaa qaadi jiray heeso guubaabina oo wadaniyada oo kicinaya qoomiyadda Oromada. Fanaankan caanka ah ee la dilay wadanka Itoobiya oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ayaa ka hor fanaanimada waxa uu ahaa lojir kuna nool baadiyaha wadanka Itoobiya, waxaanu ka soo heesi jiray iskuulada wadanka Itoobiya. Hooyadii ayaa ku dhiirigelisay inuu fanka ku biiro oo uu caan ka noqdo wadanka Itoobiya, gaar ahaan qoomiyadda Oromada. Fanaankan ayaa 2003 isagoo dugsiga sare dhiganaya dawladda Itoobiya xidhay, waxaana lagu xidhay mid ka mid ah jeelalka ugu waaweyn wadanka Itoobiya ee lagu magacaabo Kalshala Ambo. Jeelkan oo caan ku ahaa mid ka mid ah jeelalka lagu ciqaabo wadaniyiinta iyo dhaqdhaqaaqayaasha qoomiyadda Oromada ee waqtigii Mana Sanaawi, waxaana loo geysan jiray dadka jeelkan ku jira ee Kalshala Ambo jirdil iyo tacadiye kala duwan. Haddaba Halacu Haduus xadhiga lagu xidhay Halacu Haduus 2003 oydadiisu aad u yarayd ayaa ahaa mid niyad jabin caburin iyo inaanu soo bandhigin heesaha wadaninimadu ku dheegan tahay ee qoomiyadda Oromada oo lid ku ahaa dawladda wadanka Itoobiya. Sanadkii 2003 waxa uu soo saaray alban mid ka mid ah albanada ugu caansan ee heesaha fanaankan Halacu Haduus. Albankan oo ugu magac daray Darxumad Diidnee. Albankan oo si aad u soo shacbaxay waxaanu noqday heesaha loogu iibsiga badan yahay wadanka Itoobiya ee afka Xabashiga ku baxa. Fanaankan waxaa ka hadlay ilaamaha ammaanka iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu diray taxsiid tiiraanya leh shacab weynaha wadanka Itoobiya iyo gaar ahaan qoomiyadda Oromada. Ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Mr. Abiy Ahmed ayaa ka hadlay dilka Halacu Haduus, waxaanu tilmaamay inuu aad uga xun yahay, waxaanu ku baaqay in shacabka wadanka Itoobiya isdejiyaan, waxaanu sidoo kale ku adkeeyay ciidamada ammaanka iyo laamaha ammaanku inay baadhaan dilka Halacu Haduus. Ilaa hadda waxaa loo xidhay 10 qof oo ka soo jeeda qoomiyadda Amxaarada. Saacadii ugu dambeeyay waxaa ka socday magaalada Addis Ababa mudaharaadyo gilgilay guud ahaan caasimadda Addis Ababa, kaasoo xanibay isu socodka gaadiidka ee kala duwan ee caasimadda Addis Ababa. Dibadbaxyadan ayaa dalbanaya sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa ciddii ka dambeysay dilka fanaankan caanka ah Halacu Haduus. Xaaladda wadanka Itoobiya way qasan tahay. Xaaladda wadanka Itoobiya ayaa hadda qasan. Shacabku way gadoodsan yihiin, waxaanay dalbanayaan in cadaaladda la horkeeno ciddii ka dambeysay dilka Halacu Haduus oo ka mid ah halyeeyada wadanka Itoobiya, gaar ahaan qoomiyadda Oromada ku dhaarto. Ayaa xaaladiisu ay la mid tahay tii ka dhacday wadanka Mareykanka ama mid ka daran ee dilkii ninkii madooba ee George Floyd. Haddaba qulqulka mudaharaadada ee wadanka Itoobiya ayaa ka sii socda ilaa hadda caasimadda Itoobiya. Xaaladdu waa ay qasan tahay. Haddaba daawada, haddii aad ku cusub tahay kanaalka Xog Iftiinshe oo aynu ku soo gudbino hadba wixii cusub ee xiisaha leh, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saartid, kale like saartid, siina share garaysid si uu gaadho walaalaha kale ugana faa'iidaystaan hadba waxa cusub. Waa kanaalka Xog Iftiinshe oo idiin soo gudbiya barnaamijyo kala duwan oo xiiso geliya. Waxaan idiin soo daynaya anigoo ah Xusni Mawlid Warsame. Aad ayaa u mahadsantiin meel kastoo aad joogtaan akhyaarta qiimaha badan.